السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إياه أيها يورد شو ما أنتم حندين ودنا قصة رياض عجيبة قصة عوان كذا مقعدة وحلدها يانا موسى نبي إله إلا الله عليه الصلاة والسلام قصة عند لونه وقت نبي موسى عليه السلام أيها واحد شري qoys aad u faqiira ama saboolaha oo ku noolaa nolol aad u adag oo ciriiriya sanado badan ayay sidaa ahaayeen waxay nolosha la dahalgamaanba oo ay samir iyo adkaysi ku noolaadaanba habeen ka mid ah ayaa ninkii iyo xaaskiisii oo furaashooda fadhiya waxay weydiisay odageedii miyaana muuse calayhi salaam ahayn nebigii iyo kii allah sida tooska ula hadlayay wuxuu ugu jawaabay haa wuu yahay waxay tidhi maxaad ugu tegi weyday oo aad arrinkeenna ugu sheegi weyday ood uga delbi weyday inuu allaah inoola hadlo oo uu inoo weydiiyo inuu taajiriin inaga dhigo si aynu inta nolosha inooga dhiman ugu noolaano farxad bagaadhe iyo nolol qurux badan wuxuu yidhi waa yahay oo wuu ka yeelay marwo waan u tegayaa waanan u soo bandhigayaa arrinkiina kadib subaxiidii ayuu u tegay nebi muuse calayhi salaam waxaanu uga warramay xaalkooda nololeed waxaanu ka soo dalbaday inuu allah ula hadlo oo uu inoo taajir ka dhigo kadib nebi muuse calayhi salaam waa uu tegey si uu ula hadlo allah oo ugu bandhigo xaalka qoyskan faqiirka ah allah ayaa ah mid cid kasta maqla arkane oo aanu shayna ka qarsoomi karin kadib allah sarreeye wuxuu ku yidhi nebi muuse calayhi salaam u sheeg inaan iyaga tujaar ka dhigayo fadligayga dartiis laakiin waa 1 sano oo keliya sanad kadib ayay sidoodii ku soo noqon doonaan intaa kadib nebi muuse calayhi salaam waa uu u tegay qoyskii waana uu bushaareeyey in allah subxaana wa tacaala ka aqbalay ducadoodii laakiin ay sanad keliya tujaar ahaanayaan kadib ninkii iyo xaaskiisii way farxeen farxad aad u weyn kadib allah subxaana wa tacaala wuxuu u bedelay noloshoodii hore waxaanu ka asaaqay meel aanay ogeyn waxaanay muddo kadib noqdeen tujaar noloshoodii waa ay isbedeshay waxaanay noqdeen qaar farxad iyo damaashaad ku nool kadib haweeneydii caqliga wanaagsaneed ayaa ku tiri odaygeeda gacaliya soo ma ogid inaan nolosha ku noolaanano sanad keliya kadib aan fuqurano ku noqonayno ninkii wuxuu yidhi haa waan ogahay kadib ayay gabadhii baarida ahayd waxay tidhi haddaba hantidan allahna siiyey aynu kaga faa'iidaysano inaynu caawino bulshada deegaankeena ku nool si markaynu fuqaro u noqono sanad kadib ayaguna inoo caawiyaan oo ay gudaan abaalka aynu galnay inaguna aynaan u tuugsan iyaga ninkii wuxuu yidhi waad asiibtay gacaliso gabadhu gabadhaadu caqli badan bay ahayd kadib waxay bilaabeen inay dhisaan guri ka agdhow waddo ay dadka musaafiriinta maraan oo tuulada ku yaala waxaanay albaabka guriga u jeediyeen xagga waddada waxaynay tuuladooda ku yaalay 7 waddo oo laga soo galo iyagana waxay sameeyeen 7 albaab oo laga soo galo guriga ninka iyo xaaskiisa waxa ay guriga ku samayn jireen cunto habeen iyo maalinba si dadka musaafiriinta uga cunteeyaan waxayna sidaa ahaataba waqtiga iskuruba iyadoo nebi muuse calayhi salaam uu dusha kala socdo xaalka qoyskan ayaa waxaa dhammaaday sanadkii allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu reerkani tijaaru noqdo subxaana allah qoyskii maxaa dhacay intaa kadib qoyskii waxay ilaaween sanadkii allah ugu xadiday maadaama iyagu waa ninka iyo gabadha ay ku mashquulsanaayeen cunto karinta iyo siinta dadka martida ah ee tuuladan yimaada waxaa soo galay sanadkii 2 iyaguna weli sidii ayay tujaar u yihiin oo ay caawinayaan dadka saboolka ah ama dadka socotada ah subxaana allah nebi muuse calayhi salaam ayaa yaabay oo la yaabay qoyskan waxaanu la hadlay allah waxaanu ku yidhi rabbigayo waxaad ugu tala gashay qoyskan inay sanad keliya tujaar ahaadaan iminkana sanadkii 2 ayay weli tujaar yihiin waa maxay sababtu allah subxaana wa tacaala ayaa ugu jawaabay muuse waxaanu furay albaab ka mida albaabada risqiga iyaguna waxay fureen 7 albaab way ku arsaaqayaan aadamahayga muuse waan ka xishooday
aniguna inaan dib uga celiyo noloshoodii faqriga ahayd. subxaana allah, subxaana allah, waa arrin cajiibkeeda leh, waa arrin la yaab leh. subxaana allah, qisadan waa qiso aada iyo aada u cajiib badan. allah ayaa xumaan oo ka dhan ka nasahan. sadaqadu waa shay qaali ah oo laga dheefo faa'iidooyin badan adduun iyo aakhiroba. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.